Salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wacan wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada wararka qaranka TV oo aad alaabahaadan oo kale si toos ah hawada uga daawataan. Qaranka TV mar walba waxa uu ka turjumayaa guulaha ay gaareen madaxda qaranka Soomaaliyeed, isla markaana waxaan kusoo bandhigaynaa sida ay Soomaaliya wadada nabadda cagta u saartay, iyadoo aan ku dhiirigelinayno bulshada Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan inay ka wada shaqeeyaan nabadda. Waxaan halkan idinku soo gudbin doonaa dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka intiisa kale, anagoona markaasi ujeedadeenu ay tahay in ummadda Soomaaliyeed ee dalka iyo dibaddiisa ku nool aan u soo gudbino xaqiiqooyinka dhabta ah ee dalka gudihiisa ka jira. Qodobada aan idin soo gudbin doono waxaa ka mid ah maanta waxaa kulmay madaxda ummadda Soomaaliyeed ee mucaaradka iyo muxaafidka dalka isugu jira, iyadoona markaasi guulo horudhac laga gaaray kulamadaasi ay isugu yimaadeen mucaaradka iyo muxaafidka ee dalka Soomaaliya. waxaana ujeedadu ay ahayd in markaasi iskaashi buuxa ay yeeshaan dhinacyada mucaaradka iyo muxaafidka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya. Sidoo kale daawadayaal waxaan idin soo gudbin doonaa labada gole waa ay kulmeen, isla markaana waxa ay ka hadleen arrimo masiiri ah oo dalka iyo ummadda Soomaaliyeed faa'iido xoogan ugu jirta, iyadoona arrintan ay u muuqato mid wax badan ka bedelaysa in markaasi ummadda Soomaaliyeed ay ku sii jiraan colaadaha iyo dhibaatada muddada ku dhow ee 30 sano. Sidoo kale waxaan idin soo gudbin doonaa in markaasi Soomaaliya ay ku soo laabanayso dhabaha nabadda, iyadoona markaasi suuqyada waaweyn ee magaalada Muqdisho xilliyada habeenkii isbedel weyn oo dhinacaas iyo horumarka ah ay sameeyeen dadka Muqdishona waxa hadda ay heleen nabadgelyo buuxda, iyadoona mucaaradka iyo muxaafidka dowladda federaalka Soomaaliya ay doonayaan in gacmaha ay isqabsadaan. Haddii aynu ku horeyno, maanta waxaa furmay shir ay isugu yimaadeen mucaaradka iyo muxaafidka ee dalka Soomaaliyeed, iyadoona shirkaasi ujeedkiisu uu ahaa sidii iskaashi buuxa ay u yeelan lahaayeen mas'uuliyiinta dhinacyada siyaasadda Soomaaliya. Madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ayaa dhawaan waxay shaaciyeen in gacan ay u fidinayaan mucaaradka, isla markaana ay doonayaan inay ka qanciyaan arrimo dhowr ah oo madmadow uga jira. Ujeedada ugu weyn ee la isugu yimaaday waxaa qayb ka ah sidii mucaaradka loogu sheegi lahaa in dalka ay ka dhacayso doorasho, isla markaana wax muddo kororsi ah aysan jirin, iyadoona madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaarihiisa Xasan Cali Khayre ay dhowr jeer oo hore shaaca ka qaadeen in marnaba muddo kororsi aysan jirin, doorasho qof iyo cod ah dalka laga qaban doono, laakiin mucaaradka looga baahan yahay inaysan soo qaadan dana shisheeye ee iyagu ay ka hadlaan fikirkooda rasmiga ah, isla markaana ummadda Soomaaliyeed sidii loo badbaadin lahaa loo wada istaago. Shirkan ayaa waxa uu yahay mid madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dhawaan uu ugu yeeray gudoomiyaha madasha xisbiyada qaran ee mucaaradka ah mudane Shariif Sheekh Axmed, isla markaana waxaa sidoo kale qayb ka ah madaxweynaha dowladda ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud. Inta badan mucaaradka iyo muxaafidka ummadda Soomaaliyeed waa ay ka wada hadlayaan shirarkan, iyagoo inta badan hoosta ka xariiqay in Soomaaliya ay guul u tahay in madaxdeeda ay soo hor fariistaan, isla markaana cidna aysan u arkin in dhibaato gaar ah dalka ay ka jirto. Mucaaradka daawadayaal haddii aan idin xusuusiyo, waxa ay walaac xooggan ka qabaan ciidamada tirada badan ee ay tababarayso dowladda federaalka Soomaaliya in doorashada lagu afduubo, isla markaana mucaaradka xabsiga loo taxaabo. Laakiin dowladda federaalka Soomaaliya waxay sheegtay in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed in la dhiso ay faa'iido ugu jirto guud ahaanba ummadda Soomaaliyeed, isla markaana dhisidda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed aysan ahayn mid siyaasadeed. Sidoo kale mucaaradka waxa ay sheegeen in muddo kororsi ay doonayaan hoggaanka ummadda Soomaaliyeed waa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Khayre, laakiin arrintaasi waxaa meesha ka saaray guud ahaanba mas'uuliyiinta dowladda, hadday ahaan lahaayeen madaxweynaha, ra'iisul wasaaraha, gudoomiyaha baarlamaanka iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenka, kuwa oo sheegay in wax muddo kororsi ah aysan jirin, isla markaana loo baahan yahay in ay ummadda Soomaaliyeed u cadaato in doorasho qof iyo cod ah ay ka dhacdo gudaha dalka Soomaaliya. Marka la eego daawadayaal, intiina badan waxaad isweydiinaysaan sidee qaranka Soomaaliyeed oo dhibaato fara badan ay xilligan ka jirto ay uga dhici kartaa doorasho qof iyo cod ah, maadaama dhibaato
dhinaca ammaanka ah ay Soomaaliya ka jirto waxa dhawaan ay sheegeen guddiga doorashooyinka oo ay hogaaminayso Marwo Xaliimo Yarey in caqabado fara badan ay ka taagan yihiin maamul goboleedyada dalka Soomaaliya kuwa oo iyagu sheegay in markaasi aysan dooneen in xisbiyada mucaaradka iyo muxaafidkaba ay xafiisyo ka furtaan gudaha maamul goboleedyada waxa kamid ahaa in maamul goboleedka Puntland hore uu u diiday in deegaanadiisa xafiisyo ay ka furtaan xisbiyada mucaaradka waxaana arintaasi ay ku sheegtay Xaliimo Yarey inay tahay mid maamul goboleedyada ay doonayaan in iyagu mar kale ay soo xulaan xildhibaanada Soomaaliya ay yeelan doonto laakiin waxay sheegtay intaasi aan la isaga hareer doonin waxay ugu baaqday guud ahaanba hogaamiyaasha maamul goboleedyada in qaranka Soomaaliyeed horumarkiisa aysan ka soo horjeesan isla markaana ay adeecaan madaxdooda Soomaaliyeed sidoo kale daawadayaal caqabadaha ku gadaaman waxa kamid ah doorasho ka dhacda gudaha dalka Soomaaliya in ururka Al-Shabaab ay iyaguna dagaal kula jiraan dawladda federaalka Soomaaliya ururka Al-Shabaab waxa dad badan ay ku baaqeen in wada hadal la furo isla markaana qoriga caaradiis oo kaliya aan lagu la dagaalamin inkastoo horaan ay ka soo horjeesteen in wax wada hadal ah ay doonayaan dhinaca kale daawadayaal waxa jirta in xisbiyada mucaaradka ah iyagu gaashaanbuurta sameystay ay doonayaan in talada ay kala wareegaan hogaanka Soomaaliyeed haatan talada dalka haya taasi oo loo arko arin fiican oo dastuurka uu qabo laakiin waxa laga codsanayaa mucaaradka iyo muxaafidkaba inaysan markaasi fursad yar siinin guud ahaanba wadamada daneynaya in Soomaaliya ay burburto oo ay qaliijka qaarkood ugu horeeyaan sidoo kale waxa la rajeynayaa in doorashada dhacaysa ay kaalin weyn ka qaataan saaxiibada Soomaaliya oo reer galbeedka ay ugu horeeyaan Mareykanka Ingiriiska Faransiiska iyo wadamo kale iyadoona sidoo kale doorashadan soo socota la filayo in kaalin weyn ay ka qaataan wadamada saaxiibada dowladaha Soomaaliya iyo waliba Turkiga hadii aynu dib ugu laabano wararka ku saabsan shirkan muhiimka ah ay isugu imaanayaan mucaaradka iyo muxaafidka waxa la leeyahay ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha waxa ay dejiyeen qorshe ku saabsan in mucaaradka la dareensiyo in wax dhibaato ah dalka aysan ka jirin isla markaana wax walba oo dhacay dawladda federaalka Soomaaliya ay doonayso in qaab nabadeed ay ku xaliso isla markaana laga gudbay in qaab qabiil ahaan ah la isku weeraro in qaab qabiil xilligan la isku dilo isla markaana xilligan la gaaray xilligii ummadda Soomaaliyeed ay gacmaha is qabsan lahaayeen isla markaana la doonayo in xilligan laga tanaasulo qabiilka oo dhibaato far badan ku haya gudaha dalka Soomaaliya daawadayaal waxa jirta in madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha ummadda Soomaaliyeed Xasan Cali Khayre ay horaan shaaca ka qaadeen in marnaba iyagu aysan ka tanaasuli doonin in ummadda Soomaaliyeed ay u shaqeeyaan isla markaana cid cabsi gelin karta aysan jirin waxa ay horay ugu sheegeen in cid kasta oo musuqmaasuq lagu qabto ay gacanta ku dhigi doonaan isla markaana mucaaradka ay kala shaqeeyaan dawladda federaalka Soomaaliya dhinaca horumarinta kulanka wixii ka soo baxa waxaan idinku soo gudbin doonaa wararkeena dambe balse si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay gudaha qarankaaga waxa kula haboon inaad subscribe saarto asxaabtaadana aad la sii wadaagto wararka iyo barnaamijyada kala duwan sida joogtada ah aan idinku soo gudbinayno markana hadii aynu dib ugu laabano wararka kale gudaha dalkeena hooyo Soomaaliya ka dhacay waxa kamid ah daawadayaal waxa aad loo hadalhayaa heshiiskii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu dhawaan la galay madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta heshiiskaasi waxa uu Nairobi ka qabsoomay 14kii bishan aynu ku guda jirno November laakiin ila wareetiyo kala duwan ayaa sheegaya in Soomaaliya ay guul weyn ka gaartay heshiiskaasi isla markaana arrimo far badan oo xayiraad weyn ku ahayd ay markaasi Soomaaliya haatan ka dabcayso waxa sidoo kale jirta daawadayaal in ay muuqato in ay Soomaaliya guul weyn ka gaartay maxaa yeelay ganacsatada Soomaaliyeed gudaha dalka ku nool waxay u muuqdaan inay yihiin kuwa iska kaashanaya dhinacyada ammaanka sidii sare loogu qaadi lahaa labada dal sidii labada dal loo horumarin lahaa ganacsatada Soomaaliyeed dalka Kenya ku nool waxa ay si cad u sheegeen inay aad ugu faraxsan yihiin in dib loo soo celiyo cilaaqaadkii labada dal maxaa yeelay Kenya horay waxa ay qarankeena Soomaaliya uga joojisay in uu waxyaabo kala duwan oo adeegyada cargo ay qayb ka yihiin loo soo dhoofiyo dalka Kenya
waxaa sidoo kale ay shaaca ka qaadeen in lagama maarmaan ay tahay xilligan in markaasi dowladda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed ay iska kaashadaan dhinaca horumarka isla markaana dowladda Kenya loo arko dowlad daris ah oo waxyaabo fara badan ay nagala dhaxeeyaan waxaa sidoo kale Soomaalida ku nool guud ahaan dalka Kenya ay sheegeen in lagama maarmaan ay tahay in mar walba is afgarad buuxa la gaaro isla markaana xilligan in xiriirka uu xumaado wax faa'iido aysan ugu jirin labada shacab sidoo kale shacabka ku nool guud ahaanba dalka Kenya wadanka Kenya oo dhashay iyaguna waxay sheegeen inay soo dhaweynayaan wada hadalka labada dhinac isla markaana ay si gaar ah u doonayaan inay ugu mahadceliyaan madaxweynayaasha labada dal oo guulo rasmi ah gaaray loona baahan yahay in iyaguna qayb ay ka noqdaan iskaashiyada lagu horumarinayo geeska Afrika madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa hore uu sheegay in Kenya ay wax walba oo horumar ah kala shaqeyn doonaan isla markaana dowladda Soomaaliyeed ay doonayso inay dib u soo celiso sharafkii iyo karaamadii ummadda Soomaaliyeed wararka kale aadka loo hadal hayo daawadayaal hadii aynu gudagalno waxa kamid ah labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya kulan wada jir ah ayay ku yeesheen magaalada Muqdisho labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa kulan wada jir ah waxay ku yeesheen magaalada Muqdisho kaasi oo muhiim u ah guud ahaanba ummadda Soomaaliyeed kulankan oo ahaa mid ballaaran oo qayb ka ah kala fadhiga lixaad ayaa waxa xildhibaanada labada aqal ay uga areensanayeen qodobo muhiim ah ajendayaasha kulanka ayaa waxa kamid ah akhrinta koowaad ee miisaaniyada dowladda sanadka soo socda 2020 oo ay dood adag ka yeelanayaan labadaasi dhinac waxaana sidoo kale ay tahay mid aad lagu farxo in labada gole ay hal meel isugu yimaadaan isla markaana ay ka wada shaqeeyaan danta ummadda iyadoo horey loo xaliyay khilaaf u dhaxeeyay labada dhinac waxaana labada guddoon ay shaaciyeen in loo doonayo in ummadda Soomaaliyeed loo shaqeeyo waqti badan aan la lulminin isla markaana xildhibaanada labada gole waa senatarada iyo xildhibaanada golaha shacabka waxa loogu baaqay in sida ugu dhaqsiyaha badan ay kalfadhiyada u soo xaadiraan si loo gaaro guulo waaweyn oo dalka iyo dadka Soomaaliyeedba wax badan u qabta sidoo kale hadii aan eegno wararka ugu xiisaha badan qarankeena saacadihii ugu dambeeyay aad loo hadal hayay suuqyada waaweyn ee magaalada Muqdisho waxay kamid noqdeen suuqyada caalamka 24 saac laga dukaamaysto iyadoona arintan ay tahay mid ay si weyn ugu faaniyaan shacabka ku nool guud ahaanba dalka hadii aynu eegno magaalada madaxda ummadda Soomaaliyeed ee Muqdisho waxaad arkaysaa marka aad dhex marayso xilliyada habeenkii iyadoo ay markaasi irdaha u furan yihiin xarumaha ganacsi dadku ay fadhiyaan hareeraha wadooyinka ay ku shaahayaan isla markaana wax dhibaato ah aysan jirin sidoo kale ciidamada ammaanka ummadda Soomaaliyeed ee gaar ahaan booliiska Soomaaliyeed waxa ay laba jibaareen dhaqdhaqaaqii ay doonayeen inay ku caawiyaan ummadda Soomaaliyeed iyaga oo doonaya in shacabka ay kasbadaan isla markaana ay soo sheegaan cid kasta oo ammaan dari wada wadooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho xilliyada habeenkii waa kuwa aad u mashquul ah iyadoona dowladda federaalka Soomaaliya ay ka codsanayaan shacabka ku nool magaalada caasimadda ah ee Muqdisho sidii wadooyinka xiran loo furi lahaa isla markaana ganacsiga sare loogu qaadi lahaa magaalada Muqdisho dadka ku nool waxay yihiin dad adkaysi ah leh isla markaana waxay u dul qaateen xaalado kala duwan oo adag oo dalka Soomaaliyeed soo maray magaalada Muqdisho waxay ka soo kabanaysaa dhaqaale darri aad u xoogan oo haysatay burbur xoogan oo qabsaday iyadoona hadda dhismooyinka casriga ah ee magaalada ay ku soo badanayaan waxaad arkaysaa moolal waaweyn oo haatan dhismo uu ku socdo kuwa haatan xariga laga jaray oo dadka ay soo buux dhaafinayaan isla markaana waxay ku yihiin nolosha ay ku jiraan dowladda Soomaaliyeed horey ay uga codsatay guud ahaanba shacabka Soomaaliyeed in iyagu ay gacantooda ku jirto in ay nabadda soo celiyaan laakiin la doonayo in iskaashi buuxa lagala sameeyo dowladda daawadayaal magaalooyin kale ayaa jira iyagoo soo koraya waxa kamid ah magaalada Garowe Boosaaso Kismaayo Baydhabo Jowhar kuwaasi oo iyaguna xilliyada habeenkii aad ka dareemayso in ay markaasi soo kabasho xoogan ay sameynayaan dadka ku nool waxay ku sheegayaan in nolosha 10 sano ka hor halkii ay taagneed iyo meesha maanta ay taagan tahay ay tahay kaaf iyo kala dheeri waxaana ummadda Soomaaliyeed mar walba ay ku duceysanayaan in Allah subhanahu wa ta'ala nabad uu siiyo iyadoona siyaasiyiinta Soomaaliyeed laga codsanayo in ay ummadda aysan isku dirin isla markaana horumar wanaagsan ay ka sameeyaan dhinaca isdhexgalka bulshada oo markaasi
la doonayo in ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada kuwooda ee dalka gudihiisa wax ku bartay ay shaqooyin fara badan helaan si looga baaqsado ammaan darida magaalada caasimadda ah ee Muqdisho waxyaabaha la yaab kale ee lagu arkayo waxaa kamid ah habeenkii iyo maalinkii in ganacsiyo noocyadooda ay cusub yihiin oo wadamada kale Afrikaanka iyo Yurub laga heli jiray ee lagu soo kordhiyay isla markaana ganacsiyadaasi shacabka Muqdisho waxay yihiin kuwa aad u xiiseynaya daawadayaal waxaynu soo gaarnay qaybihii ugu dambeeyay ee barnaamijkeena falanqeynta siyaasadda ee qaranka TV waxaana ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan aan doonaynaa in aan uga faa'iideyno wararka dhabta ah ee xaqiiqda ah ee gudaha dalka ka jira haddii aad doonayso inaad nala saaxiibto subscribe saar asxaabtaada la wadaag wararka iyo barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada ah kugu soo gudbino mar walba waxaynu u taagannahay inaan horumarno qarankeena isla markaana aynu soo bandhigno wararka saxda ah ee ay ku farxayaan ummadda Soomaaliyeed ee gudaha dalka Soomaaliyeed ka jira ma doonayno inaan ummadda u sheegno warar niyada ka diliya ma doonayno inaanu soo bandhigno waxyaabo aan u wanaagsaneyn dhagaha ummadda Soomaaliyeed haddaba mar walba halkan waxaad kala socon kartaa su'aal maalmeed aan idin soo gudbinayno anagoona su'aasheena markaasi ku saleynayna xaaladaha dalka ka taagan su'aasheena maanta ayaa waxay ku saabsan tahay daawadayaal misleedahay dawladda federaalka ah ee Soomaaliya hogaamiyaasheeda in ay ku guuleysteen waxyaabo fara badan isla markaana fursadihii la siiyay ay uga faa'iideeyeen markaad eegto xagga nabadda caasimadda Soomaaliyeed ee Muqdisho oo bilihii ugu dambeeyay dhacdooyinka ay yiraahdeen si aad fikirkaaga nagala qayb qaadato waxaad xor u tahay in fikirkaaga aad dhiibato laakiin waxaan rabnaa in marka ugu horeysa aadan cidna aflagaadeenin inaadan siyaasi Soomaaliyeed aflagaadeenin inaadan qabiil Islaameed aflagaadeenin laakiin marka ugu horeysa aad diiradda saarto guud ahaanba sidii fikirkaaga oo saliim aad noogu soo diri lahayd si aad fikirkaaga nagala qayb qaadato waxaad noogu soo diri kartaa numberka WhatsApp-ka ee shaashada kaaga muuqda kaasi oo ah +25 fikirkaaga markaad noo soo dirto waxaan la sii wadaagi doonaa ummadda Soomaaliyeed si ay halkaasi aragti wanaagsan uga helaan mar walbana fikirkaaga waan soo dhaweynaynaa adigoo cidna aad ku xadgudbeen intaasna waxaa inooga idin barnaamijkeena falanqeynta siyaasadda qaranka TV mar walba gacmo furan ayaan kugu soo dhaweynaynaa waxaana intaas inooga idin barnaamijkeena